dadka qaybtooda ayaa aamina khuraafaadkaas oo dhaliya ama keena mashaakil caafimaad oo dadkaas ku dhaca. waxyaalaha khatarta oo dadku aaminaan waxa ay keeni kartaa inay jirka dhib u yeesho oo uu qofku moodayay inuu caafimaad keenayso. dadkaas waxaa ka mid ah ninkan la oran jiray Paul Carson oo ahaa nin cadaan ah oo ku noolaa waddanka Mareykanka. ninkaas ayaa waxa uu noqday buluug, midabka jirkiisa oo dhan iyo isu bedelay midabkaas buluuga ah. inuu midabkiisa isbedelo ayaa waxa ay bilaabatay 90-aad. waxa uu sheegay inuu joornaal ka akhriyay in macdanta qalinka ama silfarka Ingiriiska u yaqaan, Carabiguna fidda dhaho, ay faa'iidooyin caafimaad oo fara badan laga helo. markaas ayaa waxa uu samayn jiray inuu macdantaas soo qaato ayaa wuxuu ku dari jiray biyo, markaas ayuu maalin walba cabi jiray. ninkani macdantan ma cabi jirin kaliya ee xataa jirkiisa ayuu marin jiray oo waxa uu islahaa caafimaad ayaa ka qaadaysaa. waxa uu sheegay markuu muddo saas waday isagu waxba ma dareemin inay ku dhaceen ama uu kalarka jirkiisu isbedelay, laakiin saaxiibadiis ayaa dareemay in wajigiisu isbedelay. markii uu horeysay wajigiisa ayaa isbedelay, kadibna jirkiisa inta kale ayaa midabkooda buluug noqday. macdantaas qofku goortuu isku badiyo oo jirkiisa ku farabadato waxa ay sababtaa inay maqaarkiisa fadhiisato, taasoo keenta in midabka maqaarku uu isbedelo. dhakhaatiirtu waxay sheegeen in maqaarka kaliya uusan isbedelin xataa xubnaha iyo organada jirka sida beerka iyo caloosha uu kalarkoodu iyaguna isbedelo. arrinta ugu yaabka badan ayaa ahayd ninkaanu xataa sii waday cabidda macdantaas qalinka xataa goortuu buluuga noqday, sababtoo ah waxa uu aaminsanaa inay caafimaad tahay oo cudurro badan daweyso. laakiin dhakhaatiirtu waxay dhaheen wax faa'iido oo caafimaad ay leedahay ma jirto. ninkaas ayaa waxa uu geeriyooday sanadkii 2013 kadib markii uu wadnuhu istaagay. marka qofku maaha waxaan la hubin inuu naftiisa halis ku geliyo oo uu iska isticmaalo. hebel ayaa tiri waa ku caafimaaday, iyo hebel baa yiri waxuu i taray maaha qiil aad u cuntid dawo aan meel ay ka timi la garanayn oo dhici karto inay dhibaato keeni karto.